بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وحن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود الضيالسي وصوص علي إمام الباني ويري حديث كان واس حسن سنة كيسان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وحو نبينا عليه الصلاة والسلام كورنا يا أوليه سعادة لابن آدم ثلاث وشقاوة لابن آدم ثلاث وحوري سدح شيء قفك ابن آدم كان وحيوهين ليبان يا السعادة ويهين سدح شيء قفك ابن آدم كان وحيوهين بعونمو يا دباتو يا ورير بيوهين مركا نبي عليه السلام مركا وحوليه فمن سعادة ابن آدم وحياله كل ليبانو oo ku guuleysto mana hadii uu helo sabab u noqon karta inuu faa'iido waxa weeyaan azawjatu saaliha haduu ilaahay siiyay naag xaas saalixada oo ilaahay ka cabsanaysa ninkeeda adeecaysa wanaaga maxalla ku kaalmeynaysa xumaatida ka reebaysa macna wixii fiican uu kaalmeynaysa wixii xun ka celinaysa macna waxa qofku haduu ka reer fiican yahay macna waa ka horeeya wuxuu war markabu saalix macna daabada uu adeegsado waagi hore dadku faras ama dameer ama se maxaa lahayd neef geela ama se waxay doonto ha noqotee oo wanaagsan sababta weyn qofkaas daabadaasi waxay u sahlaysaa inuu hawshiisa guwaalo safarkiisa uu soo dhameystiran karo macna danta uu ka leeyahay uu ku qabsan karo si sahlan iyo dhibaato ay lahayn hadda waxa la mid ah adduunka maanta waa isbeddelan baabuur ama se waxay doonto ha noqotee qofka waxa uu ku shaqaysanayo ama hawshiisa ku godanaya haddii wax fiican macna hawshiisa u qabanaysa وحويا قفكاسي سعادو كو نولانيا وحوري اي والمسكن الواسع غوري اسغي عروتيسو كو فيلان اون عريري اهين تا marka waxay keenaysaa qofkii inuu noloshii uu dareemo maxaa nolol raaxa uu dareemo oo noloshii uu dareemo nolol sahlan uu dareemo oo marka waxay keenaysaa qofkii maxaa la diiladii iyo hamigii uu lahaa inuu in badan uu gaari karo sababtoo gabar fiican oo khiyaara ba ilaahay wax ugu daray oo wanaag laga rab taagan wuxuu istaa daabad hawshii uu rabay uu ku adeegsanay oo u sahlan wuxuu leeyahay guri marka uu soo daalo uu soo noqonayo oo waasic uu ku raaxaysan karo marka naasalaam waxa uu leeyahay وشقوة لابن آدم ثلاث ابن آدم سدح ميلا شينا الشقاوة وكيان بعونوه وكيان معنا قفوا كل بطونيا نولش عريري ويكو قليسا هدفكي يقولها إنو قارا ويكو أتكانيسا وعيري المسكن السوء haddii guri xun uu qabo ama ciriiri uu yahay qaylo badan yahay mashaakil uu yaalo oo qofkii maanta soo shaqeynay gurigiisa ka maqnaa ee qamuunta uu qabay inuu guriga ku soo noqdo oo gurigiisa ku raaxaysto markuu guriga guri ciriiriya oo meel khamis aan lahayn ama buuq badan leh oo meel lagu nasto lahayn qofkii wax weey wuxuu dareemay ciriiri dhibaato dareemay iyo wal mar'atu su hadii naag afdheer oo dhaqan xun oo qaab daran dhaqan xun ma jeedo xumaatay sameeyaan laakiin aan ninkeedii uu kaalmeeyay wanaaga ninkeedii uu kaalmeeyay wuxuu khayr uu keeno ninkeedii aan ka cilnayn xumaatida uu sameeyo asagoo waxa qofkii wuxuu dareemayaa nolol ciriiri ayuu dareemayaa goolkii ama yoolkii uu raadinay inuu gaaro way ku adkaanaysaa سبحان الله من السلام عليه وحب markuu war marka uu hadii gaadiidka uu isticmaalayo ama baabuur xun uu yahay ama dameer qaab daran uu yahay oo mar uu ka fariisanayo ninkii saaqa shaqo ku kalliila ee adilha markuu baabuurku istaaray waa dansan yahay shaqadii waa uu ka haray mar qofkii wuxuu dareemayaa maxaa lahayd inuu ciriiri uu ku jiro marka naasa marka wuxuu leeyahay intaasna wax tunaysa qofku waxay sabab sax saadada iyo liibaad ilaahay baa bixiya shaqaawada ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga qoro laakiin qofka ibn aadamka inuu asbaab uu qaato waa laga maarmaan asalaamuri saadada qofku uu yoolkiisa ugu gaari karo kaalmeyn karo waxa kamid ah gabar fiican oo khayr qabta wanaag uu kaalmeynaysa baabuur fiican ama markab fiican ama daabad fiican oo hawshii ku qabsan karo guri waasic oo marka uu soo daalo uu ku nasan karo saddexniina wax uu keenay qofkii inuu maxaa calaliyo iyo mashaakil iyo hadafkii uu lahaa uu gaari waayo waxaan guri ciriiri oo dhibaato badan oo baqaylo oo ka badan tahay islaan la afdheero maxaa la aan u kaalmeeyno daa'iman dhibaato la dul taagan hadii uu guriga uu ku guri marka maxaa baabuur qaab daran ama samxadaabad hawshiisa uu ku qabano taa wuxuu ka soo inuu ma badan oo maxaa la uu calaliyo iyo mashaakil ku dhaco marka asagoo ilaahay tala saaranaya hadana inuu asbaabta uu qaato waa laga maarmaan jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.